wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa soo saartay wareegto lagu dabagalayo dambiyada loo haysto maxaabiista ku xiran xabsiyada ku yaala maamulkaasi sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Maxamed Aadan Socdaal. wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa soo saartay wareegto lagu dabagalayo maxaabiista ku xiran xabsiyada ku yaala deegaanada Koonfur Galbeed. wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowladda Koonfur Galbeed ayaa waxa ay soo saartay go'aano lagu dabagalayo tirakoob bileedka maxaabiista lagu xiro xabsiyada Koonfur Galbeed Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka mudane Jibriil Sheekh Luqmaan oo ku saxiixnaa wareegtada ayaa waxa uu warfidiyeenka u sheegay in maxaabiista qaar ee ku xiran xabsiyada muddo fara badan ayagoo aan helin wax xukun ah. wasiirka ayaa intaa ku daray in wasaaradda ay xaqiijinayso in ay waajib tahay ilaalinta xuquuqda qofka maxaabiiska ee ku xiran xabsiyada deegaanada Koonfur Galbeed. طبعا وحي يعني نظام دولتيد اما دكريتدا aan soo saarnay ku saabsan si hoose ayaan ugu wada hadalnay kulay mar hadii nidaam dowladeed ama dekreeto wasiir ama madaxweyne ama heer gudoomiye aan noqoto haday mar soo baxday in la fuliyo waa waajib hadii aanay wasaaradda garsoorka ee dowladda Koonfur Galbeed waxa waajib nagu ah in aan mar walba la socono doorka hoos imaanaya in aan mar walba xaaladooda la socono aan la xisaabtano waajib ay nagu tahay waajibna saaran waaye marka sidaas daraadeeda warqadan waxaan ugu talagalnay in aan la socono ama aan kontrolno bil walba maxaabiista tiradooda guud in aan ogaano koow waxaan kala rabnaa in aan ogaano mise xukun ma helin in aan ogaano rabnaa taasi waajib ay nagu tahay ilaan qofka xoolamaan hadii mar la soo xirto waxa waajib inuu xukun helo ayaa waajib ah marka sidaas daraadeeda anaga waxaan rabnaa ka wasaarad ahaan in aan ilaalino xuquuqda maxaabiista dowladda Koonfur Galbeed guud ahaan xuquuqda maxaabiista in aan ilaalino rabnaa oo wixii waajib ka saarnaa wasaaradda inay gudataan rabnaa. taliyaha ciidamada asluubta gobolka Baay gaashaanle sare Aadan Ali Axmed Dhiiga Bereg ayaa sheegay in ay gudan doonaan waajibaadkooda ku aadan wareegtada maanta ka soo baxday wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka isagoo dhanka kale sheegay in xabsiyada Baydhabo qaar kamid ay ku xiran yihiin dad ku eedeysan kooxda Daesh isla marxantaasna ay adag tahay ilaalintooda. eedaysana leh madambiir ma ilaa ku ka dhigo wasaq meelidaas wax ma ma lisugay dhibaato badan ha siyaadi in ciidanka baahadiisa la daboolo maxaabiista la ku waxay daawadiyo iyo biyuushu idaasho in nidaamka ciidanka maxaabiista la shal goran diris leh mashaar leh waxyaalihi ciidanka baahana in leh wasaaradda garsoorka iyo amniga gaabadi maadaama taas hadda dheeri hadii dimanka naga daw wareegtadan ka soo baxday wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa u muuqata mid dabagal cad ku haysa maxaabiista ku xiran xabsiyada gobolka Baay iyadoo hore ay u jireen tuhno kala duwan oo sheegayay in reeg shabaab ka tirsan laga sii daayay xabsiyada magaalada Baydhabo. Maxamed Aadan Socdaal TV-ga dowladda Jubbaland Baydhabo.